أما سنتين وحن ربع إن نمهد عليو مدحوينها حس الشيخ لما قدومياش حزبية دحل لبعنا سنة الرضا أخيارتك للدول ورقي هوان بلد اللي يرضى وضياشة بعض الصحافة عيدا كي سراكيشة لما أنت كسو قيب قلي وإن سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب فرحد وين إيتها إيمان تاينان نكلا قيب قاتو مناسبة قالقة وددك الصومالي حسوسنا يعني ميل الجوغان با maalintii xurriyadda ay qaateen oo ay ka soo wareegtay 6 sano waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel joogan bahanbaliyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwii guushaas dib u hanta oo gaara ujeedooyinkii iyo aragtidii qiimiga lahayd lagu soo aasaasay dadka Soomaaliyeed inay ku noolaadaan mataqaana xurriyad iyo sharaf iyo karaamo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryana intaas markii aan ka gudbo waqtiga gaaban dartiisa waxaan u maleynaa ummad walba waxay leedahay calaamo iyo astaan lagu yaqaano waxay degantaa deegaan ummadda Soomaaliyeed Ilaahay meesha uu deegaan uga dhigay wuxuu siiyay af iyo diin iyo maxaan ku yiraahdaa muuqaal iyo taariikh ay leedahay dadku inay kufaan oo dhacaan wax ceeba ma laha laakiin waxa ceeb ah maalin walba meesha ay ku kufijiraan ay ku kufaan waxaan hubaa dad badan oo Soomaaliyeed maanta sanad guurada 6 ka soo wareegtay maalintii xurriyadu waa ku faraxsan yihiin laakiin haddana waxay jeclaan lahaayeen sidaan si ka duwan inuu ahaado dalka yani sidii aan rabnay iyo sidii aan jeclayn iyo sidii aan filaynay intaba ma ah laakiin cidna kuma eedeynay annaga is eedeynay sababtuna waxaan u maleynaa marka aad loo fiiriyo dadka Soomaaliyeed markay u halgamayaan dawladnimada waxa uga muhiimsanay taqriiban gumaysiga inay iska qaadaan marka aragti dawladnimo waqti badan lama gelina waxa waqtiga la geliyay gumaysiga la bixiyo gumaysiga marka la bixiyo dawladnimadu dad iska reebaadiyaan ahayn wax nagu cusub ay ahayd qabaa'il aan ahayn ani waxaan islaa waxay u baahnayd waqti in la siiyo horta balays barto gogol la dhigto dawladnimada la raba la isu sheego maxay yeelay marxaladina ka guurto marxalada ku guurto kala u guurto waxay u baahan tahay inay u diyaar garoodo odayaashii iyo mataqaana gabdhihii waa dadaaleen dawladda noo dhiseen waa soo socotay wali waa daba soconaa raadku waa muuqda laakiin wali waxaan taaganahay sharciga hal ixtiraam waxay ahayd xilligan sharciga hal ixtiraamo inaan wada qaadano aan ka soo gudubno oo fulintiisa kor taagana yani ani waxaan islaahay noocan ma ونصيب در ما أنت ولي إن شرعك هلا إلى عليه شرعك وهالسرعي عن السوشيء إنه حينقول تاي دعوة وين دتك سوامال الملك جوجام ولي بدت كفرت له في غايين دتك يعني حكم كله يبقى له أمانس أنت أسمرك أنك جدبه وحن ربعنا أجدبه قضية ساعة والدور شوي دور شوينكو ووحى عن إسلامنا ما أنت سوامالي وحقيقي سيئة أفرت سنة بين دور شدعه doorashada sida ay noqonayso haday sidii la jeclaa ay naqawayso sida ay ka badi wayso oo laga tashaday oo heshiis lagu inay ku dhacdo aqliga bani aadamka keenay dawladda waxaan leenahay waqtiga la siiyay waqtigeeda waa lagu ixtiraamay waqtiga hadda waa gabagabo ilaa haddana nidaam iyo hab doorasho lagu aaday ma muuqdo taas waxay su'aal gelinaysaa war xagee loo socdaa dad badan waxay ku leeyahay horta nimanku doorasho ma rabaan doorasho ma ka hadlaana maxaa ka hadlaysin adinka runtu waa su'aal khatar hadii doorasho misal rabaan la isku joogo ani ma aqaan sarax yaa ii sheeg hay doorasho ma rabtid noo sheeg waaya waxa kale oo rabtid bal noo sheeg mase doorasho waxaan rabtaa kaliya ogto miiska soo saaraysa kaliya ayadana ma shaqaynayso sababtuna wax kale ma aha intay dalka xureeyaan oo wax walba hagaajiyaan ay dhahan sanduuqyada oo kuwaas maali hebla la aada diyaarana dheelay laakiin doorasho la aaday qofna ma taqaano 4 sano waa dhamaatay wali wax miiska la soo saaro ma leh arinta guddiga doorashooyinka waa dadaaleen wixii qaban kareen ay qabteen ani ma raba aadan aan u eedo laakiin waxaan rabaa inaan iraa mas'uuliyad aysan lahayn ay qaateen mas'uuliyad aysan lahayn waxa waaye doorasho maxay u baahan tahay koow amni u baahan laba waxay u baahan tahay heshiis saddex maxay u baahan tahay dhaqaale guddiga doorashooyinka ma intaas mas'uuliyad ka saaranta ma
waqtiga ay noo sheegeen maxay ku beesgareeyeen marka 13 bilood 9 bilood maxaa lagu beesgareeyay macnaheedu waxa waaye lama yaqaano doorasho goor ay dhici doonto bil xarf waahid saas waa doorasho goor ay dhacaysa lama yaqaano ma shaqaynaysaa ma shaqay karto waxaan rabaa qiso cajiib ah inaan idin sheego qisadan waa qisada Abu Bakar lagu doortay radiyallahu anhu wa ardaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markuu dhintay oo ilaahay u oofsaday saxaabadu waa isqabsadeen dadka waxay soo jeedaan horta nabiga aan aasno aan isu soo noqon ma yadhaan nabiga tala lagu aaso rabaayay fiiriday nabiga imaam u baahan yahay talada laga qaato si loo aaso taariikhdeena waa taariikhda islaamka saxaabadii ay joogan saxaabadii waa weynad kibaar saxaabo dhan ay joogan waa la istaagay waxa ay run waa aan qof dooranno doorashada markuu asaas nabi Muhammad akramul khalqi dadkii la noolaa waxay dheemeedkiisa noo yaala nabiga aan tala gaarno marka ninka ku fikiraya doorashada uu faraqa ku haysto aniga waxaan leeyahay arintaas khatar waa anaga waxaan rabnaa dalkan 4 sano ba in la doorto dadka qaar waxay leeyihiin adiga waa ku darsatay madaxweyne xasan waa ku darsaday heblo waa ku darsada uma dhamaahayso miyaayada miska soconaysa wax kale aad ku daraa ani horta inta aan joogay oo xukunka ahaay 4 sano ma dham ragaan 4 sano ma haysteen doorasho ma ku keeni waayeen miiskaas ka keena lama haysteen talada dhinaca ka galaan doorasho waxay u baahan tahay jawigeeda in la diyaariyo jawi ma la diyaariyo jawigu ma diyaarsana hadda hadii la yiraahdo maanta hadii model la isku waafaqo asaga waqti u baahan in mataqaana doorasho lagu qabto maxaa yeelay laba la socod mid la socdo nuguma jirin yaani waxa ka soo qaadaa hay'adaha dawladda kaliya hay'adaha dawladda heer federaal iyo heer maamul goboleed heer federaal baarlamaanka iyo aqalka sare waa kala tageen maamul goboleed dawladdu ma wada shaqeeyaan golaha shacabka iyo aqalka sare ma wada shaqeeyaan soo annaga dhana waxaan u baahanahay dib u heshiisiin hay'adaha dawladda dib u heshiisiin u baahan waxaan leeyahay waqtigu inta uu tagin miiska imaada tala waxa haysiin keena colaad leedin ma qabo tala leedin ku dara annaga waxaan rabnaa qaranka inuu san fareena ka bixi ummada badanaa burburay kuwa hadda burburaya ogaada kuwa hadda burburaya maxaa loo burburaa dastuurka la ogoleen dastuurka waa inaan ogolaana annaga ogaada wadaadaan nahay waagi hore waxaan wala soo barbaariyay dastuur lama ogola dawladnimadu waa dabagalna waa fiirina waxaan ogaanay diinta islaamku wuxuu lagu heshiiyay in la fuliyo gaar ahaan marka dawladdu ku dhisay heshiis qaran oo yahay marka heshiiska qaranka wuxuu reed ku leeyahay diinta islaamka waa in la ilaaliyaa sida uu yahay in loo ilaaliyaa loo baahan yahay waxa ku jira ummadda midnimadeeda maslaxadeeda ku jirta jiritaankeeda ku jirta dawladnimadana asal ahaanba qawaacid ay leedahay la raaco dadka maxay u baahan yihiin cadaalad waxay ku imaan kartaa koow horta madaxdu inay run sheeg hadaad run sheegin horta maxaan kugu aaminaa sheeg 4 sano lagu doortay 4 sano waa dhamaatay ilaa hadda wax la isku dooranaa ma hayn maxaa lagu aaminaa markuu waaya waxay la tahay dii dawladdu ka fikirayso dawladda shisheeye dadka ku qabanaya lama qaban karo hadday ku fikirayaan ciidamada idin tababaran kuwa kale idin imaanaya emisooma joogta mustaxiil sharciga naqba kara gacmaheena waa bisaareen anaga isaareen sharciga bis sharcigan qabiyada oo buugaas yar noogu qoran dastuurkaas kaasaan wada ogolna qoran ma rabno xabad ma rabno qabiil ma rabno qaylo ma rabno dastuurkaan rabna dastuurkaanu soo kii madaxweynuhu ku yimid maaha soo kan xildhibaanadu iskula joogaan maaha soo kan dawladda ku dhisantaa maaha asagaan ogolna asagaan rabna marka waxaan leenahay Soomaaliya maanta xilliga lagu fikiraa waa ka soo baxday dadkan waxay barteen waxay fahamsan yihiin dawladnimada ay leeyihiin waa dad diyaara waxay u baahan yihiin wax ay tabanayaan laga hadlo marka dalkan wuxuu u baahan yahay heshiis qaran wuxuu u baahan yahay maxaan ku yiraahdaa jawi siyaasadeed oo lagu tartami karo in la diyaariyo oo xalaal ah oo nadiif ah u baahan yahay ani waxaan aaminsanahay guddigaana hal cafiyo hal iska daay maxaa yeelay wax ay sheegaan waxay sameey karaan mana la suugi karo 40 milyan iyo 60 milyan inta ka keenayaan بالله عليك انت كينايا اديك ما ملكوك ما جرت
marka doorashada ilaa 60 milyan laga helo waa la sugaa 2 sano 30 sano 40 sano